hal qof oo meyd ayaa laga helay dooxa magaalada Gabiley kaasi oo uu soo qaaday daadka dooxaasi maraya habeenkii xalay ahaa ilaa hadda lama aqoonsan meydkani oo yaala isbitaalka guud ee magaalada Gabiley waxaana arintaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi xogayaha fulinta dawladda hoose iyo xildhibaano ka tirsan golahaasi hal qof oo meydkiisa laga soo helay dooxa Jiwaaji ilaahay subxaanahu wa ta'aala deeqdiis ay ka mid tahay raxmadda ay noo shubay inuu muddo raadeen raxmadda haddana nusqaanteeduna way la socotaa isbitaalka waxaa la keenay nin dooxa Jiwaaji laga soo helay meydkiisa oo wali aan la aqoonsanin cidda uu yahay ninkaasi isaguna waxa weeyaan ninkaasi waa meyd waxaan yahay isbitaalka waa kulli waa khasaaraha ilaa hadda soo gaaray 24 saacadood iyo roobka ka daayay gobolka Gabiley waxaan joognaa dooxa laagta Jiwaaji oo soo qaaday nin meyd ah oo halkan laga helay oo ay noo soo sheegeen dadka deegaanku markii ay saaka waa berigii dhulku iftiimay ay caruuru soo baxeen ay caruurtii aragtay meydka yaala dooxa la rajcin halka waxa yaala weeyaan meyd daadkan uu soo qaaday oo maanta qayladhan ay noogu soo sameeyeen dadka reemiga deganaa reerahan meydkii waa halka yaala sidoo kale dooxa dhinaca waqooyi ka maran magaalada Gabiley ayaa qaaday gaari u lahaa barasaab ku xigeenka gobolka Gabiley kaasi oo ay saarnaayeen xubno kamid ah gudida abaaraha iyo mid kamid ah wariyaasha ka howlgala magaaladaasi hase ahaatee dadkii gaarigaasi saarnaa ayaa la badbaadiyay waxa uu daadkaasi qaaday gaarigii mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada oo arintaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen daadku qaaday xubno kamid ah gudida abaaraha heer gobol oo hawshii samafalkay marka hore wadeen u tagay deegaanka Busse raashin ku soo qaybinayeen soo noqodkiina dooxa laag barako warmalal iyo aagiisa ka galay saad arkaysan shantoodii qofba waxay ku urureen raarka sare ee gaadhiga iyo awgood waxa qaaday dooxa la yiraahdo laag barako 5 xubnood iyagoo ah gurmad shicib iyo dawladba aanu galay ilaahay mahadee ka gaadho waan ka soo badbaadinay dadkii Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV gobolka Gabiley